بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. شيخ هذا الكؤودي بارك الله فيه وحالق ممارمان انتان إلوبين إن كدر سنة أم سليم رضي الله عنها حيالي وحينو نقنيشا كل جيم بقدوة وحينا عنوان تهي وحا جعل هذه قورنا كهذا اللي محبة الله إلهي قفك محبة شادي قلبي شايقشه وحكست حبك إلهي أي كهر مرنا يا حب الله با غالب كان نقنيا فطردي يوم قرنا إيشا سجيدي يا طبيعي وسميسنا قفك وسكبدل يا حبك إلهي بك غالب نقناي مركا أم سليم رضي الله عنها قصة ذو وقصة عجيب له وعبرة وين له وكنت سنيسة مدى الرضا بقدر الله ولا شيء خوفكو إنه قدرك إلهي أصبره قدر إلهي باكو يمد وحي نفت النعبتها باكو تمد وعلى قد انتي ولما شذا أقوين دي واحد إنسان كسومرة إنه كصبره وقيب ما هي إنه رالي بكون نقضه وكسي درنت وحوي الرضا بقدر الله مركا قبل ناسي وحي تصالوا نقطي انتي أمد النبي محمد كدم بيشورا الرضا بما قسم الله الرضا بما قسم الله الرضا بقدر الله. أم سليم رضي الله عنه قصة هذا حتى رياض الصالحين ككتال الله وإذن شوذ مرتان أم لينيا وحي هو يؤتهي أنس بن مالك رضي الله عنه وها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيري 8 سنة النبي أخذ مي وليس أفن إما أورنن وليجينا وحن سميي محادو سميسي إما أورنن وليجينا وحنا سمين حدات سمين لهيدي ما أورن رضي الله عنه سجاه كشيكينه هو يدبو كشيكينه ولي بأرم خاص يعني دتك عادي كان هبونين بكشيكي يسي دين تلوجات أم سليم زوج كذا مركا أبو طلحة وها أبو طلحة رضي الله عنه وحب حي جهاد في سبيل الله نبي الراعي ويل ودلي أو أم سليم أي شيء أو بكاء يونتجي يركيو بكاء وتجي نبي الراعي صلى الله عليه وسلم markay soo gadoomeen oo soo noqdeen waxa caado wahayd nabiga asxaabtiisa sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum haday soo noqdaan oo Madiina soo galaan oo ay gooray habeen tahay ma aynan guriyaha kuma aynan hormari jirin Madiinada duleedkeeda iska seexan jireen habeenkaas kadib subaxii ay guriyahoodii kala tagi jireen sidii waa dhacday Abu Talha habeenkii uu soo hoyday uu soo wali gurigiisa soo gaarin ayaa wiilkiina dhintay wiilkii Umm Sulaym ay dhashay baa dhintay yarkii markii uu dhintay Umm Sulaym ay ogaatay in Abu Talha uu soo noqday oo uu joogo oo beritaba uu subaxii guriga iman doono horta bal marka ugu horeysa dadkii gabdhihii iyo jiiraankii bay la dardaarantay waxay tiri Abu Talha wiilkiisa dhintay yaan la iga hormarin qofka u sheega anigu aan ugu horeeyo waa arinta koobaad arinta labaadna iyaduna gurigeedii way hagaajisay guri geeri taalo kamay dhigine guri guur ama aroos yaalay ka dhigtay waa iska fahmaysan baan u maray guri aroos bay ka dhigtay gurigii way qurxisay shaxshax bay ka dhigtay ayadina shaxshax bay iska dhigtay shagaajisay
ma garatay marka waxa meesha yaalana waa ilmihii ay dhashay ee beerkeeda gabal ka mida ahaa oo dhintay oo dhimashadu ku cusub tahay ayaa guriga yaalla gurigiina waxay ka dhigtay guri gabadh aroosahoo ninkeedii oo safar ka yimid ay ku soo dhoweynayso iyada gurigana hagaajisay iyaduna is hagaajisay maxay u jeedaa waa su'aal hal isweydii maxay ka wadaa waxay ka tahay maxabbo iyo kalgacayl iyo arrimaha rag iyo dumar ka dhexeeya oo jacayl ay arrimaha u qabta miya jawaabtu waa maya leanna musiibada haysatee ku dhacday ee ilmaheedii dhintay baa wax kasta ka weyn laakiin ujeeddo kale ay ka leedahay ujeeddada ka leedahay waxaa weeye qadarkaa ilaahay ee yimid raalli bay ku tahay laakiin waxay rabtaa haddana ilaahay inay tusiso allah inay u muujiso inay raalli ku tahay maha way ku sabirtay maaha inay raalli ku tahay muntaha ridaa ay ku tahay nolosheedii inay sidii meeshii ka wadato sidii caadiga ahaan jirtay gabar ninkeedii qabay uu maqnaa oo yimid caada waxaa inay gurigiina hagaajiso iyaduna is hagaajiso hawshu halkaa ku dhammaato sidii bay ku waday dadkiina way la dardaaranto waxay tihi abu dalxa ayaan loo sheegin abu dalxa gurigii markii uu yimid oo uu soo hoyday habeenkii soo hoyday ee uu guriga yimid waliba habeen bay ahayd lana maalinnimadii bay soo gaareen gurigii ee masaajidka dabadeedna waa la sheegay saasay guriga ugu yimid abu dalxa dee gurigiisii oo iska nabada u yimid oo maaragtay oo hagaagsan oo quruxsan oo kumuu shakinin in wax dhibaato ay jiraan laakiin wiilkiisoo buu ku ogaayo wuxuu weydiiyey xaaskiisii umu sulaymin wuxuu weydiiyey kayfa waladii wiilkaygii see noqday ilaa isagoo bukuu ka tegay markaasay u jawaabto waxay tidhi huwa askanu maa yakuun hadda unbuu ugu deganaansho badan yahay hadda unbuu ugu degan yahay marka iyadu beenna may sheegin oo waa runteed oo qof nool iyo qof dhintay isku deganaansho ma aha qofka dhintay baa ka deganaansho badan kan nool waa dhaqdhaqaaqaya laakiin kan dhintay dee waa degan yahay iyadu taasay ka wadaa macno kale uu isagu u fahmay oo ah huwa askanu maa yakuun yani hadduu ugu caafimaad qabaa oo wuu caafimaaday yani hadduu ugu ron yahay waa iyadoo tira hadduu ugu ron yahay hadduu ugu ron yahay maxaa loo fahmaya yani wuu caafimaaday bas khalaas mar hadday saas tahay hawshiisii buu iska watay cashay u keentay oo iska casheeyey dee arrintii caadiga ahaan jirtay ee ka dhexin jirtay nin iyo xaaskiisa isqaba ayaa meeshii ka dhacday ileen marnaba wax walwalana mayna tusin wax ma garanaysaa ma aynan muuna dareemin dabadeedna sidii caadiga ahaan jirtay ayay maaragtay xaaskiisii la kulmay habeenkiina hawshii markii ay dhammaatay ayay la hadashay abu dalxay la hadashay waxay tihi abu dalxow waxaan ku weydiinayaa su'aal haye reer hadday reer wax kale ka caariyeystaan caariyada waxaa la yidhaahaa waa xaajigaan hadda mobaylkan le oon idhaaho icaariye oo aan kaa qaato muddo isagaa iskale muddadaasaan haysanayaa xaajaan ku gudanayaa marka caariyo aniga igu yahay xaaji makaa naqday kaama qaadan waa misaal le waaya marka ninkii mobaylka lahaa ee isaga lahaa ayaa wuxuu igu yidhi ii soo celi alaabteedii isii markuu saa yidhaah miyaan xaq u lehay markaa inaan anigu aan u diido oon idhaah maya baabuur buu yidhi baabuurkaan maalmo meel ku gaaro ama meel ku gaara isii wuu siiyey meeqa maalin u baahan tahay laba maalin ninkii baabuurka lahay baa yidhi baabuurkayga isii ma u diidi karaa maya taasaan fahmaynaa waxay tihi ra'ayta reer hadday reer kale wax ka caariyeystaan oo reerkii lahaa ay dhahaan alaabteennii na siiya
kuwii wax caariyaystay xaq miyay u leeyihiin inay dhahaan idinma siinayno jawaabta isagaa jawaabo wuxuu yidhi maya haddaba waxay tidhi wiilkaagii yaa iska lahaa allah allihii lahaa baa ceshaday ma u diidi karnaa waa maya idan faxtasib ibnak faxtasib ibnak macnihiisa waa maxay yacni isagu wuu tegey oo allihii lahaa ee marka hore caariyuu nagu ahaaye caariyuu nagu ahaa annaga maanaan lahayn yacni ilmaha dhashay adiga ma lihid waay ilaahay baa iska leh caariyuu kugu yahay hadduu doono uu kaa ceshanaya isagaa iska leh milkigii isagaa leh moogta marka allihii lahaa baa ceshadee ajirkiisuisa ku dhaafin waayo macnaha haddii aad sabri weydo ajir baa ku dhaafin laakiin marna ma soo noqonayo kii lahaa baa qaatay laakiin adiga ajirkiisa ku dhaafin faxtasib ibnak macnaheedu taa waa marka abu talxa waa isxanaajiyey wuxuu yidhi taraktinii xataa idaa talataktu uma akhbartiinii bibni waa iska kaydaysay ilaa aan wax ka qasay waa fahmaysin idinka waxba in laydin sii sharca uma baanidin yani waa iska kaydaysay ilaa aan wax ka qasay markaasaa kadib ilmahaygii dhintay hadda ii sheegaysaa miya markaasay tiri warkaa ka baxo ordo ilmaha soo aasay ilmihii sidii waa lagu aasay abu talxa radia allahu canhu arrintii iyada ahayd buu nebiga ugu sheegay sala allahu alayh wasalam nebigu arrintii aad buu ugu farxay oo wuxuu ku farxayaa mustawaha iimaankeeda gabadhaas iimaankeedu meesha uu joogo ayuu ku farxay oo nebigu ilaahay buu rabbigiisuu jecel yahay rabbigiis cidda jecelna wuu jecel yahay gabadhaasina waxay saa u samaysay nin jacayl iyo inayna ka ahaynee xubullaahi iyo inay tusto ilaahay muntaha ridaa inay gaadhay inay saa u samaysuu ogyahay dabadeed duca nebi baa meeshii ka dhacday wuxuu yidhi abu talxaw acarastum alleyla xalay aroos ma samayseen waa hadal mafhuum ah waaye waa hadal la fahmi karo dadkiina waaweyn xaasaska la fahmaa kuwa kalena idinka yaryarka u sheega acarastum alleyla qaala nacam haa wuxuu yidhi baaraka allahu fii leylatikumaa habeenkiinaas allah idiin barakeeyo ilaahay waa barakeeyeyoo waxaa uurkeedii ku guntamay ilmo barakaysan oo duca nebi ku dhacday nebiguna wuxuu saa u yeelay xubbiga ay rabbigeed u leedahay jacayluu jecel yahay iyo meesha tasliimkeeda ay gaadhay dee aduguba ka qiyaaso waa la oran karaa waana macquul arrintani inay nin ka suurtoodo dee raggu had iyo goor waa ka jalad badan yihiin oo waa ka ad adag yihiin masaa'ibta dumarka waa ka ad adag yihiin arrintan waxay ka dhacday waa qofkii dumarka ahaa dumar caadiya ma aha waa ilmaha hooyadiis waa fildatu kabidiha waa gabal yaroo beerkeeda ah wuu dhintay guriguu yaallaa gurigiina aroos bay ka dhigtay ee geeri kamay dhigin macnaha waa muntaha alridaa fii maxabat illah caza wajalla waxay halkaa ay bartay oo ay tusaale u samaysay ummadda nebi moxamed sala allah alay wasalam khaasatan yani jinsigeeda oo dumarka ah ilaa yowmi اddiin oo ummadda nebi moxamed sal allah alay wasalam mithaal arwaca mathal ayay tusaale u noqotayoo litasliimi liqadaa illah lidaalika markuu ilaahay uu ammaanayay dadka musiibadu ay ku dhacdo ee wax ay ka dhintaan dadku hadda maqasho inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxaa markiiba kugu soo boodaya waxaa kugu soo boodaya in wax dhinteen soo maha inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun laakiin inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun macnaheeda maxay tahay waxaa iska akhrinaysid maaha inaa lilahi macnaheeda waxaa waye inaa anagu lilaahi ilaah baa naleh waaye ilaah baa naleh wa inaa anagu ilayhi xaggiisaanu raajicuuna u noqonaynaa marka arrin oo ghariiba maaha waa arrin caadiya caadi waa maxay dee kii wax lahaa inuu wixii sii ceshado kaad dadka u jeclayd baa kaa dhintay marka macnaha kii lahaa baa ceshaday maaha waa arrin caadiya wey marka waa tasliim dadkaasu marka ilaahay ammaanay aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
أولئك كواس عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات يا رحمات يا نحريس يا وناك وحق الله أي دشوا ذات كوه نسلنا وكو إلهي وأمانه. أم سليم رضي الله عنها أوركي أي هبين كهيالتي مركي سقال بلود مريسو أيا وحاسوب بحي هدنا في سبيل الله كلين لو بحو وجهاد لو بحو أبو طلحة ولقوا قري جيش كأنه قيب قالوا نبينا الراع عليه الصلاة والسلام ولقينا النبي كما هرجرنا دو بحو والله بحات والله سو نقضا والله سو نقضا waxay tiri markan anigu ka hari maayo waa kula jira 9 bilood oo uura haddana waxay tiri jihaadka loo socdo kama harayo waa ku jira way raacday jihaadkii bay raacday markay soo dhamaaday jihaadkii soo dhamaaday oo ay soo noqdeen oo ay Madiina duleedkeeda habeenka ay intay baryeen ay berita ay soo galayaan ayaa fooshi qabatay ilmihii inay umusho marka ay fooshi ay qabatay ayuu jeeshkiina waa dareeray subaxii bay ahayd subaxii waa dareereen nabiga asxaabtiisii Madiina loo dareeray Abu Talha islaantiisii buu ku haray oo fool ah markaasuu ilaahay la hadlay calaaqa weyna dadkan iyo rabbigood ka dhaxeeya Allah rabbul alamin bariyo wuxuu ilaahay waad ogtahay in aan jeclahay nabigaaga sallallahu alayhi wa sallama marka uu Madiina ka baxayana inaan ka baxo markuu galayana inaan galo yani xataa ma aha musiibo adduunyo ay haysato ma aha wuxuu ka xun yahay nabiga oo sallallahu alayhi wa sallama Madiina galaya inuu isaguna la galin marka waana aragtaa dhibkan ay qabsaday ma inta kelimada ducada uu ducaystay afkiisa kama dhamaanin illa ilaahay xanuunkii foosha ah uu ka dul qaaday Muslim waxay tiri ya Aba Talha laqad dhahaba anni alladhi kuntu ajid alamkii iyo nabarkii ihayee foosha ahaa waa iga tagay in dhaqaaji aan soconay ilaahay waa ka dul qaaday waa dhaqaajiyeen Madiina la galay alxamdulillah markay gurigeedii tagtay ayaa wiil bay umushay wiilkiina fiiri gabadhaas yani subhanallah yani mada yani xubbiha lillahi wa rasuulihi Anas oo wiilkeeda ah ay wuxuu tiri kaada Anas wiilkan hadda dhashay wallahi calooshiisa wax ka horeynaya candhuufta nabiga ma jirtee gee oo nabiga u gee oo nabiga dhacaankiisa candhuuftiisa calooshiisa wax ugu horeeya ka noqdo هو كيف عن ماذا ركتين يا أنس walaalkiisii yaraa buu soo xambaaray nabiga u keenay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ducadiisa buu hormartay dhabtiisu saaray tahniik waxa la yiraahdo uu sameeyay oo timir buu nabiga sallallahu alayhi wa sallam intuu calaajiyay candhuuftiisii barakaysnayd iyadoo ay leedahay ayuu afka dhan xalaga ugu dhajiyay ilka wax ku roga male dhan xalaga ugu dhajiyay marka uu muudsaday wixii ugu horeeyay ee calooshiisa galay wuxuu noqday yani candhuufta nabiga ee barakaysnayd sallallahu alayhi wa alihi wa sallama isla markiina Abdullah buu magaciisana u bixiyay wasamaahu Abdullah ninka xadiidka rawinaya wuxuu yiri laqad ra'aytu waxaan arkay 9 min awlaadi Abdullah wiilkaas Abdullah ah ee marka nabigu dhabta ku hayay ee nabigu tahniiga u sameeyay wiilkaas 9 dhalay oo kulluhum qad qara'u al-Qur'an qur'aanka wada aqriyay baan indhahayga ku arkay ninka raawiga hada u fiirso jiilkaasi marka uu leeyahay qara'u al-Qur'an wax weyn agtooda ka qur'aanka aqriyaan macna qur'aanka xifdiyeen yani xufaada حافظ القرآن أكتوده وحوين بوكاها معها يعني سيدا إنه كان حافظ حافظ القرآن كان حفظي أكتوده وكلوين هي يعني وشاهدوين كان هذا ضدكو أي شيء لسما PhD ميلا دكتوراه عربته دكتوراه PhD أو دكتور نماء أما بهاشي كلا إنجنير نماء أما كذا سيدتك أكتوده وويهن سكوين بي ولا وينيد يعني
قرآن كحفظيين قرآن كقف حفظيين وكلوين أكتود وحاول كهلي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي أنا محا أساسها وأصلها أم سليم رضي الله عنه حبها لله ولرسوله شاك أن كسو تلقى ما أهين ولكن شيخنا العجيب ما دام كشيكيني صحابيات أو حيالياب لو كسو شيكي أيها وحالي تاسنا بل قدر صدا سلسلة دا ذهبي هيدين سعوتي قدر صدا أو إن شاء الله تعالى تصالها نوضا النقطة أدون كان أنت اللي جوجو مصائب iyo mashaakil laga maarmi maayo oo ilaahay baa ku tala galay oo Allah rabbul alamin dee adduunyada haday noqon lahayd bila musiibo noqon lahayd dee jannada ila tartami lahayd marka ilaahay mar rabo wax jannada la tartama ma doonayo daartan waa dunya leeyra ilaahay agtiisa way xun tahay yani ilaahay agtiisa way ka caayan tahay kama amaana إلهي أكتش مركان ليه هنا يعني كيلها بانكوضا انت كلام مرتبان وكنا هاي وأنا مد وأنا كتجدونا لكن كيلها ملكي لها ما أمان قرآن كسوب الله من أوله إلى آخره أفعال بقى كلمات دارتان أن جوجنا الدنيا بالليلة الدنيا سوماليدنا الدنيا بالليلة الدنيا لما قاعد يكلوا بطن وكل جد عائلة أهنا ويلادها عاجلة تي دق تبضنيت وهلا يلا أولى تيه الرئيسي مضم بينيش وحيالا بدن معيال نوع ويلادها قرآن من أوله إلى آخره هذا أخرده هل كلمه وإلهي الدنيا ذاك أمانكم اجرتوا ما في ملا وكيلها هذا كده يسن ماشي جون يفون بني فلان كمان ده يسن لأنهم مرتي وهي مادة وأنا كتير دوران لكن واحد كده يسن شاكيلها رب العالمين الدنيا لها ما هو سن أمان ملء كل شيء قرآنك أو ونن يعني عبت هذا إيو تحذير من الناس دتك ودقد إذا أوصل دبدقنا ما بتعلبا ما بيان الدنيا في عن ملك وما بيجرتبه مرمرك قاركي ومجرد أو دنك لا لقلي مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة مركا الدنيا لما صفين إيه إلهي الدنيا حسنة نقصي وحونا أحسن نقصي وفي الآخرة حسنة آخرنا حسنة نقصي وقنا عذاب النار للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة مركا أيضا الصفات اللي مجيدة تتكون وناكسن هذه إنه لو وناجين دونه ونلشه دونك إلهي وناجين دونه أي إلهي كهضلي وهذاك أعماشه وناكسن ليمد إلهي وحب الله قاضي الدنيا ذن سيدا أقول الله عيشان أكتيس ساء عايان هذا إنه نرى في عن كل ليه وبلنقات ومن الله تعالى جل جلاله هذا أركتان قف الدنيا ديسو أي كهلوذي أما كحماتي آخر ديسا هليسان لغما يابو ما ندعي كرتو إن آخر هذا إنسان منها هذا نكها هاتو لن يرها هذا نقببها هذا قف الدنيا دو كهلوذي هذا أركتان آخر ديسا هليسان لغما يابو إن آخر انت هقاكتو الدنيا دو أي كحماته ما بدعي كرتبا ومستحيل waxaa u baahan in la ogaado macnaha waxa dhici kartaa dayib oo qofku isagoo saalix oo mu'min ah soo adduunka lagu ibtileen karo soo ma jiran karo soo faqiir mana ha laakiin ilaahay wuxuu kaaga ballan qaaday dib kasta oo adduunyada kugu yimaada inuu adoo dibka ku jira hadana ku wanaajiyo hada Sulaym radiyallahu anha dibkii ugu weynaa baa gaaray leena dhimashada dhibaatada adduunyada waa badan tahay laakiin meesha ugu dambaysa dhibka ugu weyn waa geeri wax ka dambeeya ma jiro lug buu ka jabay gacan buu ka jabay waa murkacday waa jiraday waa kanay waxa soo dhan waa geerida ugu dambaysa meesha ugu dambaysa ee insaanku gaarayo waa dhimasho marka meeshii ugu dambaysay markay gaadhay manalo fiican bay gashay
nololtii ugu wanaagsanayd bay gashay iyadoo geeri ku jirta ayay haddana nololtii ugu wanaagsanayd ilaahay ku nooleeyey oo ridaa uu siiyey oo maxabadii ilahay intii ka qaalib noqotay musiibadii ay walidaalika ducada markaan nabiga ducadiisa mashhuurka ah ee uuna wada baray ee uu yiri la yiri majlis ma jiro nabigu ka kaco ilaa ducadaas uu ducaysan jiray maxaa ku jira ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يعني إلهي اقسم لنا نقيب ونسي من طاعتك ما تبلغنا به جنتك وحد جنة نقوقر سيسو ومن اليقين به وحكو جرتي ما تهون به علينا مصائب الدنيا مصائب الدنيا إله هنو أصيبا مده النبي ولقينا ما أوران إله الدنيا ذا يلا نو أصيبا ما أوران محايا لدي إلهي أبو ريبا أقوتها لقلي إن مصيبة أي نقطة أو مرنبة مصيبة الآن أيسان أهان لكن محو إلهي كبري إنه إلهي يقين سيو أفضو ذيسة وهين قدكته مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا